inaad jacaylkaaga u sheekato shakhsiyaadka aad jeceshahay waa shay qurux badan. arrintaasi waxay sii adkaysaa xiriirka, gaar ahaan lamaanahaaga aad mustaqbalka ka leedahay. laakiin qofka markuu aanu garanayn siduu jacaylkiisa u sheegto waxay ku noqonaysaa dhibaato. sidaa darteed website-ka WikiHow ayaa noo soo gudbinaya talooyin dhowr ah oo sahlan oo kaa garab siinaya inaad caqabadaha kaga gudubto oo si sahlan aad u sheegan karto jacaylkaaga. waana sidan: qodob koowaad, ubax u gee. waxaa dhici karta in wadadani ay tahay midka ay dadku hore u yaqaaneen, laakiin ma jirto wax kaga wanaagsan tarjumaada erayga waan ku jeclahay. in ubax lagu muujiyo, gaar ahaan nooc uu lamaanahaagu jecel yahay. ku dadaal inaad ubax u geyso aad sii raaciso warqad romantic ah oo aadan magacaaga kusii qornayn, laakiin adigu si shakhsi ah oo aad gacantaada ugu dhiibto ama aad usii dhiibato qof kale oo aan ka garanayn inuu gaarsiiyo guriga gabadha aad jeceshahay ama xafiiska ay ka shaqeyso. ubaxyadu waa hadiyadaha dareenka wata ee kalaasikada ah. 2. goob si gaar ah oo xasuus kugu leh la raadso. dooro oo kula kulan lamaanaha goob dabiici ah oo dhankaaga qiimo ku leh, sida gurigii aad ku soo kortay ama meesha aad jeceshahay inaad ku nasato aad ku fekerto. xasuustaadii hore shay ka mid ah u hadiyaday, u sheeg inuu qiimo agtaada ku leeyahay. arrintaas waxay dareensiinaysaa inaad tahay qof qaas ah oo aad kuugu dhow. 3. sawirada xusuusta leh. xulo sawir aad isla joogtaan lamaanahaaga oo farxad badani ay idinka muuqato u hadiyadee. u sheeg sababihii aad u dooratay iyo xasuusta gaarka ee sawirkan agtaada ku leeyahay. qodobka 4, howl yar oo sahlan. jacaylku xilliyada qaar uma haboono in lagu muujiyo ficilo waaweyn ama boorar ay ku qoran yihiin erayo awood badan oo qalbiga gelgela. isku day sida inaad albaabka gaariga u furto, ama koobkeeda qaxwaha ee subax aad u keento, ama aad fariin u dirto aad u sheegayso inay fikirkaaga marnaba ka maarnayn oo daqiiqad walba caqligaaga ay ku wareegayso.